السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. aad aan idinku mahad celinayaa idaacadda Nation. Magacaygu waa Cabdiqaadir Cali Maxamuud oo ku magac dheer Bilaal Bulshaawi. Waxaan ahay madaxweynaha TikTok-ga sida ay dadku ii yaqaanaan. Magaca madaxweynaha TikTok-ga wuxuu iga soo bilowday xilli marxalad adag aan ku jiray oo dhanka TikTok-ga aan caan saa'id aan ka ahayn. Markii dambe magacaas aan ku qortay, ugu dambeyn waxaan arkay barnaamijyo cusub aan bilaabay oo ah fani inaan magacii oo ii gadmay, dabadeetana uu noqday magaca madaxweyne mid ii hirgalay. alxamdulilah maanta magacaas wuxuu ii noqday mid maamuus iyo sharaf iyo karaamo oo magaalada dhexdeeda kula dhex noolaado. alxamdulilah. TikTok maalinkaa bilaabayo waxay ahayd 2018. TikTok markaan bilaabayo waxay iga ahayd iska xaraaba iska dadku ka qoslisi wax iska soo bandhig. muddo sanad ahaan waxaan iskaga jiray fadhiidnimo, laakiin markii dambe waxaan ku guuleystay inaan barnaamijyo cusub aan bilaabo. barnaamijyadii cusub aan bilaabay waxaan ku guuleystay inaan team la yiraahdo team school aan aasaaso. wariyihii ugu horreeyay wareysta wuxuu ahaa walaalkay Maxamed Yaxya Jiino iyo teamkiisa, ayaguna aad aan ugu mahad celinayaa. barnaamijkaas kadib annagu waxaan naqanay dad la isha lagu haayo TikTok-gana dartood loo soo wada galo. markaas aniga markuu Maxamed Yaxya Jiino wareysanayo almost waxaan haystay 100,000 oo followers, laakiin maanta waxaan marayaa dad ka badan nus milyan. daawashadeennuna waxay dhaaftay dad ka badan nus bilyan ayay ku dhowdahay oo 300 iyo maasaada oo milyan ayaana daawatay. taasina wax sahlan ma aha in 300 iyo maasaada milyan ay ku daawato, wax sahlan ma aha. taasna ilaaha ugu mahad celinaynaa, alxamdulillahi rabbil caalamiin. aniga hadda waxaa igu xiran dad nus milyan ka badan, laakiin saaxiibaday waxaa ku xiran ayaga labadooda marka la isku daro dad milyan ku dhow. haddii annaga la isku kaani daray saddexdiina la isku kaani daro waxaa noqonaynaa milyan iyo bar oo dad ku dhow ama ka badan ayaa noqonaynaa. marka intaasna waxaana gaarsiiyey ummadda Soomaaliyeed oo mar walbana garab taagan, jecel annaga horumarkeena, horu socodkeena, waxqabadkeena. mar walbana annagana waxaan rajaynaynaa insha Allah wax ayaga dan u ah in annagana soo saarno haddii Allah insha Allah. shalay zero waa taagnayn, maantana meel qurux badan aan taaganahay, berina waxaan rajaynaynaa meesha maanta aan higsanin inay gaarno insha Allah. waxaan ahay agaasimaha ama horjoogaha ama madaxweynaha team school, haddana ah maamulaha guud ee Yatinkal Foundation. run ahaantii team school shalay ilaa maanta wuu jiraa, maalinka soo bilowday ilaa hadda wuu jiraa, alxamdulilah. maanta haddana annaga waxaa u digarognay dhanka Yatinkal Foundation oo ah hay-ad aan anigoo aasaasay oo ka timiday fikrad ka imaaday anigoo ku xiran xabsiga. fikraddaasi waxay ahayd haddaan dib aan ugu milicsado, anigoo maalmaha ka mid ah xabsiga ku jira waxaa ii timid maalmo waayeel ah oo ii keentay raashin dhammaystiran. su-aasha aan weydiiyo waxay ahayd, maamo imaba taqaanida kumana aqaane maxaad iigu keentay? waa ku kasaa igu tiri aniga hooyadaha ah oo sidee hooyada ku noqoto waay. waxay igu tiri hooyadaa waxaan ku noqday hooyadahan daawaday oo ilmeynaysa oo dhahaysa muusow cunugayga waa ogoon, adigaana aabbo u ah ee wiilkayga si alaala sidaa kusoo degi karta iisoo dah. marka sidaasaan kugu imiday, wiilkayga tahay, caruurteydana isku aabe tihiin oo caruurteyda laftirkooda agoon ah. sidii aniga aan u damqaday dib aan u laabtay. wallaahi markaas shucuurteeda lama soo koobi karo, aadaan u qushucsanaa. dadkii inaan ka quslisiiso muhiim ma aha, maxaad kusoo kordhin kartaa. dabadeeta iyadoo igu jirta tuhunkaas aan rabo inaan wax sameeyo, habeenkii ayaan waxaan ku seexday maskax wax curineed inaan beri waxaan la soo tooso. subaxdii waxaan la soo toosay magac iyo qorshe iyo barnaamij cusub. alxamdulilah calaa kulli xaal, markii aan xabsiga kasoo baxay waxaan go'aansanay inaan barnaamijkii aan sameeyo. waxaan isku dayay dadyow inaan la kaashado oo iga horreeyin barnaamijka. waxaan arkay marka barnaamijkaygiioo la rabo in la wiiqo dibna loo dhigo, laakiin alxamdulilah waxaa garab isiiyey, i dhiirigeliyey, garbahayga soo istaagay walaaladayda TikTok-ga ee mar walba i daawada iyo kuwa wax ila jira ee saaxiibaday team school. alxamdulilah barnaamijkii aan aasaasnay waxaan ku bilownay inaan TikTok-ga wax kusoo bandhigno. waxaan ku guuleysanay waxyaabo fara badan oo ugu horeyso famil dhibaataysan oo dhammaantood inta 60% naafo ah
toban ay ka kooban yihiin 6na waa naafo, boqolkiiba 6dan aan naafo ah. familkaas waxaan u tashanay inaan donation u sameyno ama lacag aruurin. alxamdulillah waxaan u aruurinay lacag 10,000 oo dollar ah, si nadiif ah ugu wareejinay. ayaguna processkooda ilaa hadda wuu socdaa oo waxaan rajeynaynaa insha Allah ilaa heer caafimaad inaan gabagabayno oo aan meel cidla uga tagin. hadda waxaan wadnaa barnaamijka Ramadaanka, waxaan rabnaa asigana inaan ka salgaarno oo in allaale inta Soomaalida aan afursiin karno inaan afursiino. waxaan jecelnahay afursiinta ugu xoogan inaan maalmaha soo socda aan galno, kadibna aan ku guuleysano hadduu alla idmo insha Allah. waxaan rajeynaynaa marka annaga ka yatiin kaal ahaan iyo ka tiim iskuul ahaan inaan wax allaalo waxaan annaga ummadeena aan usoo kordhi karno inaan usoo kordhino. maanta dadku waxay isleeyihiin nin dhalinyaro oo 20 jir ah waxba ma qaban karo, laakiin waxaa hubaal ah ninka dhalinyarada ah waxa uu qabanayo inuusan qaban karin madaxweyne dhan ee dal madaxweyne ka ah. marka waxaan hamigeyga uu yahay ama aan aniga ku kalsoonahay waxa aniga aan qabanayo in uusan qaban karin qof maanta siyaasi ah ama qof calooshiisu shaqaysta. maanta waxaan hubaa anoo isku xilqaamay inaan ka shaqo badanahay nin xafiis weyn fadhiya, hanti mashaariic weyn soo gasha inaan ka shaqo badanahay. alxamdulillah taana waxay ugu soo koriyeen labadeeda waalid oo aabahayna goor hore oo iga dhintay, hooyadayna aad ugu mahadcelinaa, mar walba igu dhiirigelisa, mar walbana igu ilaalisa ammaanada ummadda muslimiinta aan u haayo. ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaa mar walba inaynu garab istaagaan waxa annaga aan hayno. insha Allah waxaan rajeynaynaa tanna inaan ka guuleysano oo guul weyn aan ka gaarno. gacan hoorsi dibadeed wuu soo dhamaaday, ummadda Soomaaliyeed ayaga is caawin karaan. nation aad u mahadsantihiin.